الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعبك الصومالي ميل جوجان بعد الصحافة ده عيد كستبا ماشي أي جوكتو حنكون سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أسكدب والصحافة ده كان حكوا سابسين هاي حال هذه يقدم بيدلك كدعي مركوري آدي هذا أنا قحنا هاي واحد دعي دل كان وحصومر اللي فربضان أو كأدن أهمها السياسة ده مرحلة وجود بيسنا وحال وجود جري دورشة لوجوسه الشيء ومدة ساعات أو حلبان هذا قارئ صباحا أنا قدام وحن قدرين إني إن لصح دورشوينك إن قدام دورشوين هفن عدالة لو كل سناكرو نتيجة وحكو أول وكيني كرتا قرن نمط الصومالي يدول النمط إنه هرأس ساعات إنه كسب حظه لكن السيب ده وحي دعاي شلي waxay ahaayeen wax aad iyo aad looga xumaado ra'iisul wasaaraha loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto in la isku dayo sharci darrada shaqada in looga qaado xafiiska laga xirto loo adeegsado awood ciidan waxay noqotay arrintii aan la filaynin aad iyo aad u xun taas marka waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaaliyeed meel joogaan bay adduunkaba inaan aad iyo aad uga xunnahay ayna tahay tilaab aan sax ahayn ka weecatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee dawladnimada intaas markii aan ka gudbo marxaladda hadda la joogo waa marxalad aad xasaasi u baahan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa Soomaalidaba inaan awoodeena isugu geyno dhamaystirka doorashooyinka lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga taas wadda aan ahayn oo furan ma jirto wadda kasta oo taas ka soo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato diyaarna u maaha dadka Soomaaliyeed inay mar kala galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bareynaa qulubta inuu hanuuniyo dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo dadka Soomaaliyeed maanta waxaad ogtihiin amni darro gaajo iyo macluul iyo abaaro maxaan ku yiraahdaa kala qaybsanaan cudurkaas maanta covid-ka oo cid ka warhaysa aysan jirin si gaar ah uga warhaysa si gaar ah ugu dadaalaysa aysan jirin ayay la daala dhacayaan marka waxaan rabnaa inaan soo jeedino in madaxda dawlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaruhu ay dardar galiyaan arrimaha doorashooyinka tabashooyinka iyo mugdiyada jirana la saxo horana loo socdo arrinta labaadna waxa waaye dadka Soomaaliyeed maadaama ay macluul adag ay jirto in loo istaago ayagana sidii dadka tawaalaysan loo gargaari lahaay dadka waxaystana ay gacan uga geysan lahaayeen dadka wajigooda uga gedi lahaayeen adduunkuna ugu soo gurman lahaayeen waxaan rabaa sidaas oo kale in ciidamada qalabka sida oo loo barbaariyay ama loo abaabiyay inay ka difaacaan dalka cadawga dadka Soomaalida ay difaacaan ay ka shaqeeyaan sareynta sharciga iyo cadaaladda inaan loo adeegsan siyaasad iyo dana gaar ah oo ay ku akaadaan wixii loo aasaasay ilaaliyaan sharciga dhowraan sharciga iyo mabaadi'da dawladnimada aysan ku milmin maxaan ku yiraahdaa siyaasadda ciidan shacabkiisa la diriray waa ognahay meesha uu ku dambaynayo marka waxaan leenahay Soomaali haddaana maanta waxaan khibrad u leenahay waa khalad siyaasi oo dhaca iyo ciidanka loo adeegsado dana siyaasadeed oo lagu dhibaateeyo shacabka meesha uu ku dambaynayo marka ayagana waxaan leenahay ilaaliya sharafka dadka Soomaaliyeed iyo karaamadooda iyo wixii aad u dhaarateen oo dhaxanta aad u jeefateen qorraxda aad u joogteen aad u dhaawacanteen saaxiibadiina ay u dhinteen ilaaliya oo ah inuu sareeyo sharciga amnigana la ilaaliyo waxaan ognahay xilliyadii la soo dhaafay ciidanka qalabka sida in loo adeegsaday siyaasad aan loo adeegsanin wixii loo abuuray oo ahaaday cadawga al-shabaab oo naafeeyay horukaca iyo horumarka dalka in lagu waajaho ayadoo dhaqaalaha iyo juhdiga ku baxaya in laga qaado shacabka Soomaaliyeed in adduunka ay ku deeqaan runtii waa nasiib darro in wali loo adeegsanayo ciidamada qalabka sida siyaasad iyo cadaalad darro iyo dulmi in la hor istaago doorashooyinka waxaan rabaa inaan uga gudbo madaxweynaha xilligiisu dhamaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
dadka Soomaaliyeed waxay ku muujiyeen kalsooni waxay ku siiyeen codkoodii waana lagula shaqeeyay intii karaan ah doorashada hadda socota qayb ayaad ka ahayd adaa hogaaminayay oo soo saxiixday raaliyaad ku ahaaday adoo raali ayaad ku wareejisay baarlamaanka hortiisa waxaad ku wareejisay ra'iisul wasaaruhuna inta aan ognahay wuxuu ku mashquulsan yahay hirgelintii wixii loo xil saartay oo ah doorashooyinka inuu hirgeliyo marka waxaan ku leenahay u daa ra'iisul wasaaraha shaqadiisa ka faragelinin xilligaaga waa dhamaaday dadka Soomaaliyeed iyadoo xilligaaga dhamaaday inay kula shaqeeyaan ay ka aamusaan ay goosteen marka ku darsanin ina adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado maanta waxa ku banaan waxa waay ra'iisul wasaaraha inaad ku garab siiso doorashooyinku inay dhacaan maanta qofka kursiga fadhiya wax alla wixii doorasho u baahneed heli kara waa adiga marka inaad doorashada hor istaagto waa nasiib darro waana waxaan la filaynin dad murashaxiina oo adiga kula mida oo dalkan soo hogaamiyay raba inay hogaamiyaan ayaa banaanka jooga oo doorashada aan qayb ka ahayn waxayna ku qancaan inay doorashadaas ka qayb qaataan marka waxaan ku leenahay carqaladda ka daa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ha u adeegsanin siyaasad in badan aad soo samaysay waa lagu soo dadaalay meelaha la soo gaarsiiyey wiilasha dhalinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan hamarin habaabinin sidaas oo kale ummadda Soomaaliyeed maanta hami waxay u leedahay inay ka gudubto marxaladda adag oo aysan ku laabanin marxalad mataqaana dhiig oo daato ayadana sabab ha u noqonin intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dawladnimada Soomaaliya sida u jilcan tahay inaan wax dul istaago tilaabtii shala dhacday waxaad garan kartiin waxa khalal dawladnimo ay dhalisay sanadkii la soo dhaafay hay'adaha dawladdu maalinta ka dambeysay waa si wiiqmayeen laakiin maalinta ka dambaysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaaban wanaagsaneyn waxa dhacay ciidamadu inay kala furmaan taasna waxa waaye hareer marka sharciga la hareer maray waxaan rabnaa dalkan inuu noqdo dal ku dhisan sharci dal ku dhisan doorasho xor oo xalaal ah dad ku dhisan cadaalad inuu noqdo taas ma aha mid laga tanaasuli karo madaxweynaha looga tanaasuli karin ra'iisul wasaaraha looga tanaasuli karin baarlamaanka looga tanaasuli karin cid walba oo isku dayda inay hor istaagtaan looga tanaasuli karin marxaladda dawladnimadu waa marxalad soo dhismaysay maalin walbana dadka Soomaaliyeed waxay helayeen khibrad dawladnimo oo keenaysa inay ku far adeegaan sharciga marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ku far adeegaan sharciga doorashadana la xoojiyo cid kasta oo dariiqaan ahayn rabta inay marsiisaneen laga wada hor yimaado ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dawladaha daneeya Soomaaliya oo garab istaagay ayagoo mahadsan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo dal dimuqraadi ah waxaan rabnaa dal si nabada isu doorta si nabada xilka isugu wareejiyo inuu noqdo gacan ku siiya shacabka Soomaaliyeed sidaas waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum.